Elon Musk ayaa ku qasaaray 4 minute gudahood 13 bilyan oo dollar. Shirkadda SpaceX ayaa launch gareynaysay gantaalka Starship, laakiin 4 minute gudahood markii gantaalka hawada loo diray kadib waa uu qarxay. Meeshaasna waxaa ku gubatay lacag dhan 13 bilyan oo dollar. Gantaalka Starship qarxiisa kadib sidaan ayay ahayd xaaladda. haddaba mid aad isweydiinayso maxay shaqaalaha sidaan ugu farxsan yihiin meesha waxa ku burburay gantaalka Starship gantaalka abad ugu weynaa oo bini'aadan sameeyaan shirkadana qasaaro weyn ayaa soo gaaray laakiin sidaas oo ay tahay shaqaalaha aad ay u farxsanaayeen wayna qoslayeen haddaba gantaalkan Starship wuxuu ahaa tijaabo oo wuxuu bilow u yahay mashruuca gantaalka Starship shirkadda SpaceX waxay ku guuleysteen sameynta gantaalkan iyo in hawada loo diro oo dhaqaaqo qaraxa gantaalkan waxaa la ogaaday ciladaha iyo meesha ay wax ka khaldan yihiin gantaalka marka hawada loo diro kadib waxaa la ogaaday in shan motor aysan shaqeynaynin Elon Musk na Twitterkiisa wuxuu ku soo qoray in bilo kadib ay ku guuleysan doonaan mashruuca haddaba tani waxay daliil u tahay in talaabadaada koowaad aysan noqonaynin guushaada oo guushaada aad xaqiijinayso guul